بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسر دواد أرداجين. مد كمدة سؤالها ugu badan ee la weydiiyo Google-ka ayaa ah sababta ay dumarka quruxda badani ugu nasiibka xun yihiin xidhiidhada. Sidoo kale daraasado badan ayaa waqtiyadan dambe laga sameeyay arrinkaas iyo sababaha keenay. Waxa laga yaabaa inaad aragto gabadh qurux badan oo aan lahayn gabi ahaanba wax xidhiidh jacayl ah. haddii ay dhacdo inay xidhiidh yeelatana ma noqdo mid waara, wuxuu ku soo dhamaadaa waqti kooban. Waxa laga yaabaa inaad aragto gabadh qurux ahaan dhexdhexaada ama dhexdhexaadka ka hooseysa oo la xidhiidh wanaagsan, isla markaana xidhiidhkeedu uu muddo dheer socdo, waliba heshay nin fiican oo aanay helin midda quruxda badani. waxaana dhacda in gabadhii quruxda badneed ay isweydiiso meesha ay wax ka khaldan yihiin. su'aalo badanina ay maskaxdeeda ku soo noqnoqdaan sida adiga ayaa qurux badan haddana iyada ayaa heshay xidhiidh fiican iyo nin fiican, maxaa keenay? haddaba haddii aynu hoos ugu daadegno arrintan, waxa sababay iyo ciladu meesha ay ka timi waa 4 sababood. sababta koowaad, inta badan gabadha quruxda badan waxay raggu ka aaminsan yihiin inay xidhiidh leedahay. maadaama ay qurux badan tahay, waxa ka dhaadhacsan nin kasta inay xidhiidh leedahay. gabadh sidaas u qurux badanina aanay kali ahaan karin, taasoo keenta inaan ragga badankooda ku xisaabtamin iyagoo karaamadooda ilaashanaya. sababta labaad, rag badan ayaa aaminsan in gabadha quruxda badan ay badan yihiin waxyaabaha ay dalbanayso iyo baahiyaheedu. marka la barbar dhigo gabadha qurux ahaan dhexdhexaadka ah, wuxuu nin kasta ka baqayaa inay dalbato wax ka baxsan awoodiisa. gabadha qurux ahaan iska caadiga ah uu isleeyahay si aad u raali geliso ama baahideeda u daboosho, kaagama baahna wax badan, agteedana uu kalsooni ku dareemo. sababta saddexaad, kalsoonida uu ninku ku qabo gabadha quruxda badan aad ayay u hooseysaa. waxaana keenay maadaama ay qurux badan tahay, maadaama ay indho badani hayaan, wuxuu is odhanayaa ninku armay kaa tagtaa, armay heshaa ninkaa qurux badan, amaba ay kaa raacdaa midkaa lacag badan adiga. taasoo keenta in hinaasuu xadka ka baxo, isqabsiga xidhiidhkuna bato, burburkiisuna soo degdego. halka gabadha quruxda dhexdhexaadkaa leh uu aaminsan yahay inaanay cidna ka raacayn, meelna ka aadayn, qof isaga ka fiicanna aanay helaynin maadaama aanay iyaduba ahayn ta ugu fiican. sababta afraad ayaa ah in raggu inta badan diiradda saaraan gabadha quruxdeeda dusha ee muuqata intaanay xidhiidh la samaynin. marka ay xidhiidh la sameeyaanna waxay qiimeeyaan quruxdeeda gudaha sida habfikirkeeda, caqligeeda iyo aqoonteeda. laakiin isla marka uu ninku dareemo inay caqli ahaan ka hooseyso siduu rabay oo aanay ahayn siduu filayay, marka hore wuxuu bilaabaa inuu ka xiisa dhaco, isla markaana uu xidhiidhka ka goosto amaba ay iyadu joojiso xidhiidhka maadaama aanu u qiimeynaynin sidii hore. halka gabadha qurux ahaan dhexdhexaadka ahna aanu marka hore ninku isku mashquulinin muuqaalkeeda sare maadaama aanay aad u qurux badnayn, laakiin wuxuu isla marka horeba qiimeeyaa shakhsiyadeeda iyo quruxdeeda gudaha. haddaba waxaan rajaynayaa barnaamijkeennan maanta aynu soo qaadanay inuu wuxuun ka anfacay adiga. aad baad ugu mahadsantihiin ku xidhnaanshaha kanaalka iyo muuqaalada aanu soo gelino. inta ka horeysa barnaamijka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.